abaabul dagaal oo haatan dib lagula wareegayo Moqokori iyo Maxaas oo beledweyne ka furmay maxaa ka jira in abaabulkan iminka Cali Jeeto hogaaminayo sidoo kalena maxaa ka jira saacadaha soo aadan shir xasaasi oo ugu furmi doona xarunta lamagalaha beledweyne odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta wufuud heer caalami iyo maamulka Hirshabelle isagana maxaa ka jira dhanka kalena Itoobiya iyo ciidanka Djibouti isbahaysanaya in iyagana dib u xureynta Maxaas iyo Moqokori inay qayb ka noqon doonaan maxaa ka jira daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan oo qoriga dib u qaatay isla markaasna Maxaas iyo Moqokori inuu gacanta ku dhigi doono balan qaaday ayaan daawadayaal kula wadaagi doonaa dhamaantii soo dhawaada muuqaalka laag dhaw soo share gareeya channelka hadda ku cusubtaana subscribe si maalmaad waa wararka ugu dambeeya guudaan dalka iyo degdega waata daawadayaal dhawaan markay soo baxdeen Maxaas iyo Moqokori kooxda argagixisada qawaarijta ee dhigcabka isla markaasna ku faanay inay Maxaas iyo Moqokori gacanta ku dhigeen ayaa daawadayaal haatan marka waxa soo baxaya in gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan oo qoriga dib u qaatay isla markaasna wacad ku maray in Maxaas iyo Moqokori uu dib u xureyn doono haatan aan la hadlayna shir xasaasi ayaa wuxuu ka furmi doonaa xarunta lamagalaha ee beledweyne waxaan isku gumaan doonaa odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo wufuud heer caalami ah sidoo kale maamulka Hirshabelle waxaana shirkaas daawadayaal dah lagu rogi doonaa in dib u xureynta Maxaas iyo Moqokori muhiim tahay isla markaasna dagaalka si wada jir loo galo dowladda federaalkana dhankeedana abaabul xoogan ay sameeyso Cali Jeeto ayaa shirkan daawadayaal horkacaya dhanka kalena Itoobiya iyo ciidanka Djibouti ayuu shirkan ugu wacay waxaana daawadayaal la doonayaa dhowr jiho oo midaysan in Maxaas iyo Moqokori lagu aado isla markaasna gacanta marka dib loogu soo dhigo kooxaha argagixisada labada meel ay ku faaniyeen maalmihii ugu dambeeyay Maxaas iyo Moqokori waa istaraatiiji gobolka Hiiraan isla markaasna wuxuu dhaxal yihiin meelaha muhiimka kooxda argagixisada laga weeraro laakiin waxa soo bixisay in toddobaadkan kooxda argagixisada in fariimo adag ay diriyeen isla markaasna ku faaniyeen in ciidanka dowladdeena waxba isku heen isla markaasna maalin walba ay soo siqiyaan laakiin haatan waxa soo baxaysa in gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan qoriga dib u qaatay haatan aan la hadlayna shir xasaasi beledweyne oo ka furmi doona xarunta lamagalaha isla markaasna wuxuu gaashaan ku daruuray inay muhiim tahay inay Maxaas iyo Moqokori markale gacanta lagu dhigo argagixisada saacadaha soo aadan laga saaro ciidanka Djibouti iyo ciidanka Itoobiya iyo ciidanka dowladda iyo maamulka Hirshabelle isbahaysanaya in dhowr jiho dagaal Maxaas iyo Moqokori lagu qaado saacadaha soo aadanna war farxad leh bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaanna ay dhagahooda soo gaaraan Cali Jeeto ayaa markay ka go'aanta mar walba in dalkan dib xureyntiisa qayb weyn oo ka qaato isla markaasna goobaha waaweyn ee furmahan uu ka soo muuqdo haatan daawadayaal marka waxa soo baxaysa in Moqokori iyo Maxaas gacanta lagu dhigi doono dib xureynteedana saacadaha soo aadan lagu dhawaaqi doono daawade maxaa kaaga bax marka Cali Jeeto wacad ku maray in Maxaas iyo Moqokori gacanta ku dhigi doono shirka xasaasiga la magalaha ka furmana isagana maxaa ku soo kordhi doona argagixisadana saacadaha soo aadanna halkee ku dhumaalaysan kareen ay kulata aragtida noo soo gudub channelka hadda ku cusubtaana subscribe si maalmaad wararka ugu dambeeya guudaan dalka iyo degdega muuqaalkana si share